madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray in shaqadiisa uu sii wato Fahad Yaasiin oo xilka madaxda hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu ka qaaday ra'iisul wasaare Roble. Bayaan uu soo saaray madaxweynuhu waxa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka jawaabay qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaas oo uu shaqada kaga joojinayay madaxa hay'adda NISA. Roble ayaa xilkaasi si kumeel gaadha ugu magacaabay Sarreeye Guuto Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay cuskanayeen qodobo ka mid ah dastuurka kumeel gaadhka ah ee Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha ay ka muuqatay in uusan ku qancin qoraalka ka soo baxay NISA ee ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil iyo xogta la siinayo golaha amniga qaranka. kadib markii hay'adda NISA ay si degdeg uga soo jawaabtay amar uu ra'iisul wasaare Roble kaga dalbaday agaasimaha hay'adda NISA in uu muddo 48 saacadood gudahooda ku soo faahfaahiyo kiiska Ikraan Tahliil oo la waayay 26 Juun ee sanadkan 2021. Fahad Yaasiin oo sidii uu ra'iisul wasaaruhu filayay aan uga soo jawaabin amarkaasi ayaa waxa uu qoraalkiisa ku yidhi waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aan warbixintan ka horjeediyo golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubno ka yihiin hay-adaha iyo xafiisyada ay khusayso. Warqadan waxaa ka muuqatay dhowr diidmo, xaqiraado, amar diido iyo awoodo la wareejiyey. Markii uu Fahad Yaasiin dalbaday in guddida amniga qaranka la shiriyo, wuxuu si cad ugu sheegay ra'iisul wasaare Roble in aanu warbixin ku siin karin muddo 48 saacadood gudahooda oo xilliga ay warqadani soo baxday ay ka hadhsanayd qiyaastii in ka yar 24 saacadood. Dalbashada kulanka guddida amniga qaranku waxay ka dhigan tahay in uu Fahad Yaasiin waqtiga dheeraystay iyada oo ay adag tahay in kulanka guddigan oo aan shirin muddo sanad ah lagu qabanqaabiyo 24 saacadood gudahood. Siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay qoraalka ka soo baxay Fahad Yaasiin. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay sidan: qoraalka uu soo saaray Fahad Yaasiin farmaajina la og yahay nuxur sharci iyo mid dawladeed midna ma laha, ayuu ku yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraalkiisa, waxaanu ku sababeeyey 3 qodob. 1. xaqiraad iyo xagaldaacin uu ku sameeyey go'aankii ra'iisul wasaare Roble. 2. farsamo kale oo awoodda dib loogu wareejinayo Farmaajo oo mas'uuliyadda amniga dalka meel fagaara ah ugu wareejiyey ra'iisul wasaaraha dalka. Ogta la siiyey Maxamed Mursal oo aan golaha amniga qaranka ka tirsanayn waa hanjabaad kale oo loo jeediyey ra'iisul wasaare Roble, ayuu qoraalkiisa ku sheegay. waxaanu sheegay inay ra'iisul wasaare Roble la gudboon yihiin qodobadan maadaama oo Fahad Yaasiin uu amarkiisa diiday aanu tallaabadii uu qaadi lahaa la sugin inta ka dhimay 48 saacadood, in dhammaan dadkii kiiskan ku lug lahaa tallaabo laga qaado lana xanibo, in guddi uu madax u yahay shakhsi khibrad iyo hufnaan leh loo magacaabo baadhista kiiskan. War-saxaafadeedka uu ra'iisul wasaare Roble xilka kaga joojiyey Fahad Yaasiin waxaa lagu yidhi markii ra'iisul wasaaruhu uu garowsaday in warbixintii hay'adda NISA ee ku saabsanayd kiiska Ikraan Tahliil aanay ahayn mid lagu qanci karo, ra'iisul wasaaruhu wuxuu shaqada ka joojiyey agaasimaha guud ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. qoraalkaas oo ka soo baxay xafiiska agaasimaha hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa lagu sheegay in arrinta Ikraan ay tahay mid xasaasi ah uuna dalbanayo kulan amni. Wuxuu intaasi ku daray in maadaama laga dalbaday inuu warbixin ka soo saaro halkii ay ku dambeysay xaaladda sargaalad Ikraan Tahliil, in loo baahan yahay in kulan ay isugu yimaadaan golaha amniga qaranka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa daraad ka dalbaday agaasime Fahad Yaasiin inuu warbixin degdeg ah oo ku saabsan xaaladda sargaalad Ikraan Tahliil ku soo gudbiyo muddo ku siman 48 saacadood. Xaaladda sargaaladan ayaa waxaa ka soo baxaya warar isburinaya iyada oo ay qoyskeeda ugu wardambeysay in ka badan 2 bilood ka hor. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay la kulmay qoyska iyo ehelada Ikraan Tahliil Faarax, isla markaasina la wadaagay dareenkiisa ku aadan gabadhan la leeyahay oo ay dhowaan dawladdu sheegtay in ay al-shabaab dileen. Roble wuxuu sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay sidii ay cadaalad u heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil. Al-shabaab waxay beenisay inay dileen Ikraan Tahliil, balse ay la fajaceen kadib markii ay maqleen warka ka soo baxay dawladda ee ku saabsan in ay al-shabaab dileen. Haddaba waa tuma Ikraan Tahliil. Ikraan waxay bishii Agoosto ee sanadkii 1996 ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd dhalinyaradii dibadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay. Waxay khibrad in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dawladda iyo laamaha amniga.
gabadhan ayaa in ka badan 5 sano ka hor ku biirtay hay'adda nabad sugidda ama sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA iyadoo ahayd madaxii amniga internetka ee hay'addaasi. markii ugu horeysay ee ay NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017 sida uu warbaahinta u sheegay taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe. kadib waxay shaqo ka bilowday xafiiskii gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo ay agaasimo ka ahayd. xoogaa kadib Soomaaliya ayay ka baxday Ikraan inkasta oo ay mar dambe dib ugu soo laabatay. hooyadeed waxay sheegtay in markii ay dalka ka baxday ay aqoon kororsi u tagtay dalka Ingiriiska. haddaba sidee lagu afduubay gabadhan? inta badan wararka la isla dhexmaraya waxay sheegayeen in Ikraan la afduubay inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn cidda afduubtay marka laga soo tago eedeymaha gabadhan. hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad oo sheegtay in gabadheeda oo joogta guri ku dhow xarunta nabad sugidda la soo wacay kadibna gaari lagu kaxeeyey. guriga ay ku sugnayd wuxuu ku yaalay agagaarka xarunta nabad sugidda Soomaaliya ee NISA oo ah goob amnigeeda si weyn loo adkeeyey. Qaali Maxamuud oo waddanka Turkiga uga timid si ay gabadheeda u raadiso ayaa shir jaraa'id oo ay warbaahinta ugu qabatay magaalada Muqdisho waxay dawladda ka dalbatay in laga caawiyo sidii ay gabadheeda dib ugu heli lahayd. anigu in sida ugu dhaqso badan wax la iila qabto ayaan rabaa oo gabadheeda meesha ay ku jirta laga soo bixiyo. gabadheeda meel dheer ma jirto, ma dhoofin oo baasaboorkeeda aniga ayaa haya. waddanka ayay ku jirtaa, magaalada Muqdisho ayaana meel laga geliyey, ha la ii soo bixiyo ayay ku tiri shirkaasi jaraa'id. Qaali Maxamuud oo ah gabadha maqan hooyadeed sidoo kale nabadoono ka soo jeeda beesha ay ka dhalatay Ikraan Tahliil ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo helo Ikraan Tahliil.